السلام عليكم وبندقني مؤكتهي قيبتي لحدنات moogtahay ayax badeedku inuu yahay xayawaan lugo badan iyo dahaadh adag leh oo badda ku jira oo la cuno afka qalaadna lagu yidhaahdo shrimp wadnihiisuna uu ku yaallo madaxiisa moogtahay xayawaanka bocool ee afka qalaadna lagu yidhaahdo snail inuu 3 sannadood hurdi karo moogtahay awrka baarqab marka uu qooqo inuu dibkiisa u dhigo kaadidiisa kadibna uu kuruska dabadiisa dibka la dhaco urta ka samaysantaana ay tahay shurufkiisa oo ay muujinayso inuu qooqan yahay magaceedana la yidhaahdo dhibi moogtahay maroodigu inuu yahay xayawaanka keliya ee aan boodi karin uuna yahay xayawaanka keliya ee 4 ruug leh moogtahay fiidmeertu in marka ay hoggeeda ama meesha ay ku jirto ka soo baxayso ay aalaaba dhanka bidix u leexato moogtahay orgi-qoodhku inuu yahay orgiga saarta ee rimiye riyaha ee reerka adhiga ugu jira marka uu qooqana uu kaadidiisa ku rusheeyo jeenyihiisa urta ka soo baxdaana ay tahay shiirkiisa muujinaya inuu qooqan yahay moogtahay boqolkiiba 3 ka mid ah barafka fadhiya qaaradda Antarctic inuu yahay kaadida shimbirka penguinka ee ku dhaqan gaas moogtahay saca in inta uu nool yahay celcelis ahaan laga liso 200,000 oo galaas oo caano ah moogtahay garigu in aanu lahayn qaybta loo yaqaan vocal cord ama vocal folds oo ah qayb ka mid ah dhuunta oo codka ama dhuubta ama weynaysa oo gariir u samaysa moogtahay wanka idaha saarta ee banduulka u ah in la yidhaahdo sumal mar walbana uu laxaha saarto marka looga boqo in laxuhu xilli abaareed dhalaanna wanka sumalka xubinkiisa dhankiisa hore lagaga xidho maro culus oo aanu laxda uga gudbi karin maradaasna la yidhaahdo xamil